ننفي عنه تقي وصالح أيه يحب أرساقي لبا أبدا أو كلا إنن إيه إنن كيسا يوحو كلتلي إن أو مركب ورسنيو ومارتي حسن الاختيار سمعيو وصفي عنه دورتو وقبل في عنه دورتو إنن كيسي أيوحو قلبيسي كعلى مي أو شعر عضي موضوعي كبد أي ملك ولا شقيان أي مش ولا شقينين dabeetana gabadhu waxay ku qanacsan in marka ay isguursadaan ay daawin masmaxay tolay salaada in ay noqoto qof fiican oo xarig Ilaahay haysta kadibna waxa ay ka dalbatay in uu ka soo dhex saaro guriga ninka xun ee hooyadeed qaba oo u xun hooyadeed iyo walaalaheedba isagiina waa uu naxariistay guurkiina waa uu dhameystiray iyadoo maxay tolay aabihii iyo hooyadii amina ka waalidkiisu aanay ogolayn waxa dhacday way isguursadeen labadii qof markii ay isguursadeen ayaa waxa dhacday waxa ay soo degeen dabaqa sare ee guriga aabahoodii hooyadoo deganayeen mar walba oo ay waqti la qaadanayeen ama ay dacweynayeen oo ama ay wax la cunayeen xaafadda ayaa waxa dhacday inantii uu aynanka walaalaha lahaayeen ayaa waxay weydiin fargal ay lahayd kadib waxay u sheegtay aabaheed waxaanay u sheegtay inay ka shakaysan tahay gabadhan walaalkeed qabo aabaheed baa canaantay oo ku yidhi xusnu dan iyo suu danigu ma fiicna ama malaha xun ma fiicna waxaanu xasuusiyay xadiiskii nabiga ahaa in maaragtay aan qofka wax laga malaysanin ilaa wax lagu arko waxa ku yidhi guriga ka raadi waad heli doontaa fargalkaaga maalmo kadib ayaa waxaa dhacday inta hooyadeed waxay weydiin maxay tolay gacantii dahabka ahayd ay haysatay waxa ay cidna uma sheegin way aamustay kadib waxaa dhacday aabihiiba wuxuu waayay moobilkiisii waxaanu weydiiyey gabadhiisii inankiisii baa ugu jawaabay anigu ilaa intii aan guursaday moobilkaaga maba aragba kadib waxaa dhacday gabadhuna waxay tiri anna maan arag waxaanay u sheegtay inay iyaduna weyday gacan dahaba oo ay lahayd inanteeduna ay weyday maxay tolay fargalkeedii weyday bay xasuusisay iyaduna inay maxay tolay weyday gacantii dahabka ahayd kadib odaygu wuxuu ku yidhi waa la heli doonaa waxaa dhacday odaygu wuxuu sameeyey wuxuu ku rakibay qolkiisiibuu ku rakibay maxay tolay kamera khafiya ayuu ku rakibay qolkiisii si uu ogaado waxaan dhacaya waxay yihiin waxa uu isugu yeedhay casuumad aqaaribtiisii iyo reerkiisii buu habeen casho sameeyey waxaa dhacday markii la kala tegay ee la baxay ayaa odaygii waxa uu waayey lacag uu komadiinka guriga yaallo ku riday qolkiisa yaalla waxa uu sameeyey kamaradii uu dul tegay uu eegay waxa ka soo baxday in gabadhii inankiisu qabay ay xaday lacagta dabeetana subaxii inantiisii iyo gabadhiisii marka ay u baxeen shoobinka ee suuqa tageen ayuu u wacay gabadhii inankiisu qabay waxa uuna tusay maxay tolay wixii uu duubay ama ay kamaradu duubtay kadib gabadhii waa ay oyday waxaana ka baqday ninkeedu u sheego laakiin odaygu wuxuu ku yidhi oo uu xasuusiyey xadiiskii nabiga ahaa man satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira laakiin wuxuu ku yidhi maxaa keenay inaad khaa'into amaanadii lagu dhiibay ama amaanadii inaad khaa'into maxaa keenay waxay u sheegtay markii aad inankaagan soo guursaday odaygii hooyadii qabay ayaa hooyadii furay markuu ogaaday in masruufkii aan siin jiray markaan shaqaynayay uu ka go'i doono hooyadiina way xanuunsanaysaa 3 bilood kadibna waxay gelaysaa camaliyad sidaa darteed baan wixii aan qaatay ama aan idinka xaday waxaan doonayay intaan iibiyo aan hooyadii kaga bixiyo takaaliifta dhakhtarka kadib odaygu wuxuu ku yidhi ma lacag xaaraan ayaad ka doonaysaa in aad caafimaad ku hesho waxaa dhacday odaygu wuu baxay wuxuu tegay gurigii inanta hooyadeed ku tegay si uu soo hubiyo inay arrinkaa wax ka jiraan iyo in kale waxa uu arkay inay arrinkii run yahay hooyadeedna ay inanta xanuunsanayso kadib waxa allaaliya wixii takaaliiftii dhakhtarka oo dhan isaga ayaa damaanad qaaday oo ka bixiyey gurigii markuu ku soo noqdayna waxa uu gabadhiisii u sheegay iyo inantiisii in waqti dheer oo geediyey kadib intii ay maqnaayeen uu alaabtii helay inantiina ilaahay bay u toobad keentay خاتمة ونكسن ويوديستي الحمد لله. الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.